ma ogtahay macmiil in adeegga anfac plus aad ka iibsan karto xirmooyin qiimo jaban oo mobile internet 4G ah taasoo ay kula socoto daqiiqado ku hadal gudaha iyo dibadda ah iyo weliba fariin qoraaleed aan ku hago habka ugu fudud aad raaci karto waxay tahay uga shuba EVC Plus-kaaga adigoo garaacaya xidig 724 xidig lixan lambarkaaga aad gelinaysaa xidig lacagta aad dooranaysaa fargees ama sidoo kale haddii uu kaar kugu jiro kaliya u bedelo garaac xidig 126 fargees kadibna dooro xirmada aad doonayso waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale soo dhawaada waa cashiradii muraajacada ee physics-ka fasalka 12aad ee loogu talagalay ardayda dugsiga sare sanadkan ka baxayso hore waxaan u soo qaadanay laba qaybood oo aan u qaybanay chapterka koowaad oscillator motion-ka marka insha Allah maanta waxaan isku imaanaynaa chapterka labaad oo loo yaqaan wave motion ama waves waa la dhihi karaa oo wave motion-ku waa hirsocod waxa loo yaqaan hore waxaan kaga soo hadalnay waxa la yiraahdo oscillator motion iyo qaybihiisa kala duwan ayaan ka soo hadalnay marka qaybtan insha Allah waxaan ku baran doonaa wave motion iyo qaybaha uu ka kooban yahay marka sida ka muuqda objective-ka chapterkan intaan objective aan ku qaadan doonaa oo chapter objective-ka marka fiiriso wave-ka by the end of the chapter maana chapter-ka wave motion-ka markuu dhamaado the student ardayga should be able waa inuu awoodi karaa to divine maana inuu qeexo waves-ka inuu qeexi karo ama uu taariifin karo la rabaa laba waxa la rabaa state types of wave maana inuu sheegi karo noocyada hirarka loo qaybinayo qodobka kale waa describe ardayga inuu sharxi karo wave motion hirsocodka inuu sharxi karo compare sidoo kale ardayga waxa la rabaa inuu isbarbar dhigi karo transverse wave oo ah hirarka gudban and longitudinal wave iyo hirarka dheersan labadooda inuu kala saari karo ardayga sidoo kale waxa la rabaa apply inuu adeegsan karo relationship between xiriirka u dhaxeeyo wave length irbaaca frequency garakaadka and wave velocity iyo xawaaraha hirka sidoo kale ardayga waxa la rabaa explain inuu sharxi karo electromagnetic wave oo ah hirarka birlabdanameedyada sidoo kale ardayga waxa la rabaa explain inuu sharxi karo station wave oo ah hirarka taagan sidoo kale ardayga waxa la rabaa calculate inuu xisaabin karo wave equation isla egta socodka ama isla egyada hirarka mathematically xisaab ahaan marka qaybta hore haddii aan ku bilowno wave maxaa la yiraahdaa marka oo by definition hada sawirka meesha oo ku yaala haddii aad fiiriso waa waxyaabo disturbance ah marna kor aadayo marna hoos aadayo marka hadafka guud ee laga leeyahay waxa waaye wave-ka macnaha formkan u sameysay ama qaabkan ayuu leeyahay marka wave maxaa la yiraahdaa laba qeexitaan waa isticmaali kartaa oo wave waxaa la yiraahdaa ama hir waxaa la yiraahdaa is a regular periodic motion macnaha waa socod kaleed oo macnaha disturbance means macnaha isku qasan ama disorder ah in a medium kaasoo ku soconaya medium waa dhexyaal ama walax ayuu dhexmaraya or ama space meel maran ayuu ka gudbaya saas in other words haddaan si kale u sheegno wave is a disturbance hirarku waa waxyaabo qasan that travels kuwaasoo ku safra through a medium macnaha dhexyaal mediumka muxuu noqonaa marka mediumka wuxuu noqon karaa markaan wave-ka aan u laabano mediumku wuxuu noqon karaa solid ayuu noqon karaa adka ayuu noqon karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa liquid ayuu noqon karaa sidoo kale muxuu noqon karaa gas ayuu noqon karaa saas waa marka wave-ku sida caadiga ah waa waxyaabo qasan oo disturbance ah that travel through kuwaasoo ku safra through medium macnaha dhexyaal from one location ayagoo ka tagaya hal meel to another location tagaya meel kale marka hirka mar walbo meesha ay ka dhasheen ayay ka tagayaan sourciga meesha ay ka dhasheen ayay ka tagayaan waxay aadayaan wax loo yaqaano surrounding-ka ayay aadayaan saas waa ayagoo marna as transverse u soconayo marna ayagoo u soconayo as longitudinal u soconayo labada waa suuragal marka wave-ku wuxuu leeyahay marka types oo leeyahay marka oo nuucyo hadda sida sabuurada ka muuqdo wave-ku waxaa u qaybin laba qaybood oo waaweyn oo laba qayb loo qaybiyaa haddii hir ama maqasho buugagta qaar saddex u qaybiyaan laakiin buuggeena dugsi sare anaga form 4 aan ku qaadano wave-ku waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn qaybta hore waxaa la mechanical wave oo hirarka mechanicada iyo electromagnetic wave oo hirarka birlabdanameedyada marka labadooda way kala duwan yihiin marka nooc kale waxaa jira loo yaqaan matter waves laakiin just anaga hadda buuggeena ma ka hadlayo kaliya waxaa muraajacineynaa waxa buuggeena ku qoran marka waveska labadan qayb waaweyn la qaybiyaa qayb loo yaqaano mechanical waves iyo qayb loo yaqaano electromagnetic wave labadan maxay ku kala duwan yihiin marka waxay ku kala duwan yihiin wave-ka hadduu u baahan yahay medium wave-ka si
oo meel kaga tago meel kale uu aado hadduu u baahan medium ama hadduu u baahan wax loo yaqaan dhexyaal waxaa loo yaqaanaa mechanical wave ayaa la wave-ka hadduusan medium uusan u baahnayn oo ah do not require macnaa mediumka ama hirka hadduusan u baahnayn wax loo yaqaano medium uu ku gudbayo wax loo yaqaano vacuum maxaa la yidhahdaa meel maran uu ku gudbayo hirka noocaas oo kale waxaa la electromagnetic waves la midka tusaale haddaan ka bixino mechanical wave waxaa ka mid a jabaqda hadda aan samaynayo kale ana hadda markaan hadlayo codkayga waa kusoo gaaraya sababta kusoo gaaraya maxaa waaye codkayga hawadu kusoo dhexmalaa saas waa la tusaale ahaan markaan dayaxa tagno macnaha dayaxu wax hawo ma lahan qofka hadduu hadla xitaa lama maqlayo ama laakiin electromagnetic wave-ka ayagu waxay ku gudbaan vacuum ay ku gudbaan vacuum maxaa lahaa empty space ama meel banaan ay ku gudbaan marka general marka waxaa lahaa marka waveska waxaa loo qaybiyaa two broad categories macnaha laba qaybood oo waaweyn ayaa hirka loo qaybiyaa and these are marka kuwan maxay kala yihiin marka mechanical wave oo la yiraahdo hirarka mechanicada iyo electromagnetic waves oo loo yaqaan hirarka birlabdanameedka marka wave-kan goormo mechanical noqonaa marka wave-kan wuxuu mechanical noqonaa si uu u socdo ama si uu energy u gudbiyo hadduu u baahan meel oo dhaxmaro oo haddii uu waayo wax uusan gudbin karin hirka noocaas oo kale waxaa la mechanical wave allah laakiin wave-ku hadduu vacuum wax ku gudbi karo ama empty space hadduu wax ku gudbin karo waxaa loo yaqaanaa electromagnetic waves ayaa la dhahaa marka midmida u dul istaagayna mechanical waves maxaa la dhahaa marka mechanical wavesku waa hirarka mechanicada hore waa u sheegnay mechanical wave waa are the waves ama waa hirarka kuwaas oo u baahan meelay gudbaan medium ayay gudbaan mediumka solid waa noqon karaa liquid waa noqon karaa gasna waa noqon karaa marka mechanical wave markaan soo qaadano marka these are waves kuwan waa hirarka which propagate kuwaasoo ku baaho haddaa doonana which travels waa dhigi karnaa meesha propagate ah waxaan ku bedeli karnaa travels kuwaasoo macnaha ku safro hirarka ku safro waxaa loo yaqaana medium maxay dhexyaal ku safro ayagoo ka tagay from one location to another hirarka noocaas oo kale waxaa loo yaqaanaa mechanical tusaalahan sawirka meesha loo yaal fiir macnaha waa water waves waa hirbiyoodyo marka hirarkan biyaha waxay ka dhashay macnaha biyaha hadduusan biyaha jiri lahayn hadda doontaan fiir marna abay u dhaqaaqaysaa marna down ay u dhaqaaqay ina u dhaqaaqad maxaa keenayo waxaa keenaya wax loo yaqaano hirarkan oo water waveska keenaya ama hirarka biyaha ka dhalanaya marka hirarkaas biyaha ka dhalanaya maadaama without water ama biyo la-aan aysan jiri karin waxaa loo yaqaanaa mechanical wave allah marka definition haddaan ku celino marka what is a mechanical wave hirar mechanic maxaa hadda su-aashaan oo kale oo types of waveska labada nooc mechanical waveka iyo electromagnetic waveka iyo mechanicalka marka loo qaybay transverse longitudinal imtixaankii ugu dambeysay oo 2020ka macnaha way ku jirtay marka mechanical waveka oo hirarka mechanicada markaan tacriifinayna ama qeexayno waxaa la yiraahdaa these are waves kuwan waa hirarka which propagate kuwaasoo ku baaha through a material medium macnaha shay dhexyaal ah dhexyaal means waa mootiye meel ay dhaxmarayaan hirka ama solid ha noqdo ama liquid ha noqdo ama gas ha noqdo mechanical waves marka hirarka mechanicada require waxay u baahan yihiin material medium shay dhexyaal ay u baahan to travel through macnaha si ay u safraan waa inay helaan meel ay gudbaan tusaale maxaa ka mid ah marka examples of mechanical wave tusaalooyin hirarka mechanicada maxaa ka mid ah marka tusaalooyinka waxaa ka mid ah water waves ka mid ah water waves maxaa waaye waa hirarka biyaha ayaa ka mid ah sawirka data arkayno kala ama sawirka meesha ku yaalo waa wave oo ah ka dhalanaya biyo marka waveka noocan oo kale waxa la waa water waves la waa hirbiyoodyo waa nooc ka mid ah mechanical wave sababta without water macnaha ma jiri karaan medium ya waa marka waterkan saddexda muxuu ka noqonaa wuxuu ka noqonaa liquid ayuu ka noqonaa medium ahaan saas okay waxa kale oo ku xiga wax loo yaqaan sound waves waxa la hirjabaqayd maxaa waaye waa hirarka keena sensation of hearing ama dareen maqal qofka inuu wax maqlo hirarka keeno ama hirarka abuura maqalka ayaa waxa loo yaqaan sound waves la waa hirjabaqayd sidoo kale waxa jira spring waves waxa waaye waa hirarka ka dhasha moolooyinka house ooga dhalanayaan marka waxay uga dhalanayaan tusaale ahaan markaan soo qaado moolo markaan soo qaado laagdis oo kale moolada aan ku sameeyo shaking haddii aan ruxo waxay sameynaa as a wave u sameysmayaan marka hirarkaas moolada ka dhalanayo ama horizontal u dhig ama vertical u dhig hirarkaas moolada ka dhasha waxaa loo yaqaanaa spring waves allah
waa hirar mooleed waxaa kaloo jira waxa loo yaqaan string waves maxaa waaye waa hirarka xargaha ka dhasho hawse oga dhalanayaan marka waxay oga dhalanayaan tusaale ahaan markaan soo qaato supporter shay wax caawiya markaan soo qaato shayga aan xarig ku xiro xariga qaybta aan ka qabto balaakin aan ku sameeyo xariga qaab noocaas u sameysmo marka hirka noocan oo kale maxaa la yiraahdaa waa transverse wave laakiin hadda yaa dhaliyay waxaa dhaliyay xariga marka waxaa loo yaqaanaa waa string waves allah waxaa kaloo jira waxa loo yaqaan seismic waves waa hirarka ka dhasha dhul gariirka ayaga marka laba nooc noqonaya marna s waves noqonaya marna b waves noqonaya marka ayaga faahfaahsan macna meesha ka qaana primary wave secondary wave kala noqonaya marka inta marka maxaa ku soo koobnay mechanical wave maxaa la dhahaa sidoo kale tusaalooyin maxaa kamida tusaalooyinkan shanta iyo kuwa kale oo kasii badan waa tusaalooyin aan u qaadan karno waxa loo yaqaan mechanical wave aan u qaadan karno marka maxaa loo dhahaa marka the mechanical waves hirarka mechanicada marka ayaga la sii kala qaybiyaa marka according to the motion ayaga la sii qaybiyaa mechanical wave-ka sababta sketchkii hore ama sawirkii hore hadii aan u laabano wave-ka laba qaybood oo waaweyn aan u qaybinay qayb loo yaqaan mechanical wave iyo qayb loo yaqaan electromagnetic wave marka mechanical wave-ka ayaa la sii qaybiyaa marka loo fiiriyo socodkooda marka loo fiiriyo mechanical wave-ka laba loo sii qaybiyaa mid waxaa loo yaqaanaa waa transverse wave ayaa la transverse wave maxaa waaye waa hirar gudban kuwana waxaa la longitudinal wave ayaa lahaa longitudinal wave-ka maxaa lahaa waa hirar dhararsan tusaale fiiri wave-ka hadduu sidan u samaysay laagdis oo kale waxaa la yidhahdaa transverse wave sababta fiiri mediumka hirka uu dhexmaraya particle-ka uu ka samaysan yahay haddii maalan up uu u dhaqaaqo hirka jihada uu u soconayo uu yahay left iyo right labada waxay isku perpendicular marka hirarka noocan oo kale oo movement of the particle iyo movement of the wave perpendicular ka dhigayo ama noqonayaan ayaa waxa loo yaqaan transverse wave ala hirar gudban ayaa la ama laakiin hadii particle-ka direction-ka uu soconayo iyo direction-ka uu soconayo wave-ka labadooda haday parallel noqdaan hirarka noocaas oo kale waxa la longitudinal wave marka guud ahaan marka mechanical wave-ka ayaa waxa aad loogu sii qaybiyaa marka laga fiiriyo socodka transverse wave iyo waxa loo qaybiyaa longitudinal wave transverse wave-ku waa hirarka gudban waa waxay waa hirarka direction-ka u soconayo hirka iyo direction-ka particle-ka u dhaqaaqa ay isku noqonaa perpendicular tusaale ahaan kan hadii aan ka soo qaado particle ka soo qaad up and down u dhaqaaqa kana u qaata wave-ka labada maxay isku noqonayaan perpendicular isku noqonayaan marka hirka noocaas oo kale waxa loo yaqaanaa transverse wave ala ama laakado particle-ka dhanka u dhaqaaqayo hirkan dhanka u soconaya labada maxay isku yihiin parallel isku yihiin marka hirka noocaas oo kale waxa loo yaqaanaa longitudinal wave ala marka aan qeexno marka maxaa loo dhahaa mechanical waves-ka oo ah hirarka mechanicada ayaa can further be subdivided waxa aad loogu sii qaybiyaa into two categories laba qaybood ayaa loo qaybiyaa ayaa la qaybinaa mechanical wave-ka laba qaybood loo sii qaybiyaa laakiin qaybintaas mechanical wave-ka la kala qaybinayo ayaa waxay tahay mid ku saleysan socodka macnaha hirka marka loo fiiriyo particle-ka medium-ka uu ka kooban yahay jihada uu dhaqdhaqaaqa marka in saas loo fahmaa la rabaa la guud ahaan hadii lagu dhaw what are the types of wave waxa uu qaybinaya laba qaybood oo waaweyn oo mechanical wave electromagnetic wave laakiin according to the motion ayaa mechanical wave waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn marka maxaa leedahay marka the mechanical wave hirarka mechanicada ayaa can be further subdivided waxa aad loogu qaybiyaa into two categories laba qaybood oo waaweyn laakiin labadaas qaybood maxaa lagu saleeyay marka waxa lagu saleeyay the motion of the wave ayaa lagu saleeyay oo ah hirka socodka ayaa lagu saleeyay relative marka la barbardhigo ama marka loo eego to the medium particle oo ah qurubyada ama saxarka medium-ka ay ka kooban tahay hadaad waa sheegnay laba mid ay noqonay socodka hirka iyo movement-ga particle-ka uu sameynayo inay perpendicular isku noqdaan ama inay parallel isku noqdaan mar haday perpendicular isku noqdaan mechanical wave-kaas waxa loo yaqaanaa transverse wave allah haday perpendicular isku noqdaan waa ya perpendicular isku noqonayo movement of the wave iyo movement of the particle hadii perpendicular isku noqdaan hirkaas waxa la transverse wave allah hadii labadaas parallel isku noqdaan waxa la longitudinal wave ayaa loo yaqaanaa oo ah hirar dharsan transverse wave maxaa la yiraahdaa marka hirar gudban maxaa la yiraahdaa by definition hadii aan qeexno transverse wave hirka gudban is one waa hirka ama waa midka that the particles of the medium
kaasoo qurubyada ama saxarka mootiya ama dhexyaalka uu ka kooban yahay vibrate uu u gariiro inay direction jihadaasoo perpendicular ku qotonta to the direction jihada of movement of the wave oo hirka uu u soconayo. macnaha waxaa loola jeedaa transverse wave waxaa la dhihi karaa hirkan marka maalan particle-ka ama qurubyada ama saxarka mediumka uu ka kooban yahay marka ay u dhaqdhaqaaqdo ama ay u gariirto jiho ku qotonta jihada hirka nafsad ahaantiisa uu u soconayo markaas waxaa leenahay waa transverse wave. hadda sawirka meesha ku yaala fiiri sawirka meesha ku yaala waa transverse wave waa hirar gudban sababta hirarka gudban waxaa lagu gartaa waxa loo yaqaano crest iyo waxaa lagu gartaa waxa loo yaqaano trough. ila crestiga waa highest point waaye trough-kana waa lowest point waa. hadda hirka haddii aan fiirino muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban laba hir dhammaystiran ka kooban yahay. hadda originka markaa zero ka soo dhaqaaqo intaan waa hal wareeg dhammaystiran waa one wave waa intaan waa one wave waa marka waa two waves oo ka kooban yahay marka sawirkan oo kale marka hirarka noocan u samaysan ayaa waxaa loo yaqaanaa transverse wave. marka transverse waveska wuxuu common ku yahay macnaha point la yiraahdo crest oo ah meesha ugu sareyso oo tuurta loo yaqaano iyo point loo yaqaano trough. marka fiir crestigan iyo crestiga masaafada u dhaxayso waxaa loo yaqaanaa wave length ayaa la waa hirba waa qeexi doonaa qaybaha danba ku baran doonaa. qaybtan fiir ka bilaab midline kan ka bilaab ilaa trough-ka imo ama midline-ka ka tag ilaa crestiga aad waxaa loo yaqaanaa amplitude alla waa qotin ama jooga hirka uu gaari kara meeshan pointigan waxaa loo yaqaanaa nodes waa guntin waa point kastoo midline-ka dhacdo waxaa loo yaqaanaa nodes alla. qaybtan waxaa la antinodes alla waxaan ku baran doonaa nodeska iyo antinodeska waxaan ku baran doonaa markaan gaarno waxaa loo yaqaanaa standing waveska markaan gaarno ayaynu ku baran doonaa haduu ilaa yiraahdo. marka hirka noocan oo kale marka waxaa la yiraahdaa transverse wave. marka qeexitaanka iyo sawirka isku fahanno oo transverse wave maxaa la yiraahdaa ama hirarka gudban maxaa la is one waa mid that the particles of the medium kaasoo qurubyada ama saxarka dhexyaalka uu ka kooban yahay vibrate uu ku gariira inay direction jiho perpendicular jihadaas oo ku qotonta to the direction of the movement of the wave kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa transverse wave. tusaale maxaa ka mid ah marka examples of transverse wave tusaalooyin oo hirar gudban ayaa waxay yihiin string waveska ka mid ah. string waveska maxaa waaye waa hirarka xargaha hadaatan waa sawirna hirarka xargaha maxay noqonaya tusaale markaa soo qaadato shay support markaa soo qaadato tusaale ahaan kanoo kale markaa soo qaadato xarig ku xirto xarigan aan blocking ku sameeyo muxuu sameysmaa qaab noocan u sameysmaa marka hirka noocan oo kale waxaa la transverse wave alla. sidoo kale waxaa kala soo qaadan karnaa water waves hirarka biyaha ka dhasho waa sawirkii ugu horeeyay data aan barnay marka labaduba hadhowti marka waxaa dhici karto ardayga in la dhaho which one of the following is not transverse wave macnaha dhowr transverse wave loo soo qoro oo hal xabo aaneen oo longitudinal lagu soo daro marka hadhowti waxaa rabaa inaad aqoonsan kartid laga rabaa. marka nooca kale waxaa la longitudinal wave oo ah hirar dheerarsan. hadda maxaan soo baranay qaybta hore waxaan ku soo baranay waxaa loo yaqaano transverse wave ku soo baranay sawirkiisa formkaas waa. hadda marka qaybtan waxaan ku baranaynaa qayb loo yaqaano longitudinal wave oo ah hirarka dheerarsan ayaan ku baranaynaa. marka hirarka dheerarsan maxay yihiin marka hirarka dheerarsan waxa waaye waa hirarka directionka particle-ka mediumka uu u soconayo iyo jihada hirka uu u soconayo ee parallel yihiin. mar haddee parallel noqdaan hirka noocaas oo kale waxaa loo yaqaanaa longitudinal wave alla. tusaale maxaa ka mid ah marka tusaale oo longitudinal wave waxaa ka mid ah sound waveska ka mid ah. sound waves maxaa waaye waa hirarka jabaqeedka ka mid ah ama hir jabaqeedka ayaa ka mid hirarka noocaas oo kale sound wave la. hadda sawirkan meesha ku yaala fiiri waa sound waves waa. hadda markaan u laaban transverse wave muxuu common ku ah crisi trough oo common ku ah ama laakiin markaan soo qaadano longitudinal wave wuxuu common ku yahay qaybtan loo yaqaano compression. compression waxa waaye waa meesha high pressure iska aad u cadaadsanaa la. marka compression waa cadaadin ama isku ururid waa. qaybtan waxaa la rarefaction la waa teel qaybka kala tagsan waa. marka qaybtan waxaa la compression qaybtan waxaa la rarefaction. marka sound waveska markay hawada dhaxmarayaan molecular hawada ayaa marna waxay la sameynaa compression marna waxay la sameynaa rarefaction mar waxay ku sameynaa compression marna waxay ku sameynaa rarefaction. marka compressionka waxaa lagu yaqaanaa high density waayo cufnaantiisu way badan tahay high pressure na wuu yahay. ama laakiin rarefaction-ka qaybta teelteelka ah densitygeeda wuu yar yahay pressurekeena wuu yahay. ama la compressionka maxaa waa high density iyo high pressure. marka waxaa jirta marka haddii aad fiiriso compressionkan iyo compressionkan masaafada u dhaxaysa waxaa la wave length
waa hirbaac ayaa la dhahaa. reer functionkan iyo reer functionka masaafada u dhaxayna waxa la wave length alla. marka maxaan fahnay wave length marka laga hadlayo transverse waveska uu leeyahay longitudinal waveka uu leeyahay. markaan joogno transverse waveska waxa la dhihi jiray ama waxa la yiraahdaa wave length laba kariista masaafada u dhaxayso. kan waa kariista kan waa kariista masaafada u dhaxaysa wave length ama taraafkan iyo taraafkan masaafada u dhaxaysa ama laakiin markaan joogno longitudinal wave markaan joogno laba compression masaafada isku jiraan iyo laba reer function masaafada isku jiraan inta waxa la yiraahdaa wave length ayaa la dhahaa. marka longitudinal wave maxaa leenahay marka longitudinal wave ama hirka dheerarsan is a wave waa hirka in which particles of the medium kaasoo macnaa particle-ka ama qurubyada dhexyaalka ama mootiya uu ka samaysan yahay move in a direction ee u dhaqdhaqaaqayaan jihadaas oo parallel ah jihada hirka uu u soconayo. ama laakiin transverse wave waxaan soo aragnay jihada hirka uu u soconayo iyo jihada particle-ka medium-ka uu leeyahay u soconayo labadooda perpendicular isku hayaan. ama laakiin longitudinal wave waxaa lagu gartaa particle-ka medium-ka hirka uu dhaxmarayo uu ka kooban yahay jihada uu u dhaqdhaqaaqayo iyo jihada hirka uu u soconayo labadooda ayaa parallel maadaama parallel yihiin waxa la marka longitudinal wave. marka transverse-ga iyo longitudinal qeex ama explain ku sameey imtixaankiina ugu dambeeyay 2020 aan galnay ardada macnaa way ka arki karaan. marka waxa la rabaa adina qaybaas inaad aad isaga fiiriso. teeda kale chapterka loo yaqaan wave motion-ka graafyadooda iyo macnaha definition-kooda imtixaanadu inta badan way ku badan yihiin form 4-ka. marka longitudinal wave marka hirka dheersan is a wave waa hirka in which particles of the medium taasoo qurubyada ama saxarka mootiya ama dhexyaalka uu ka kooban yahay move oo ku soconaya in a direction jihadaasoo marka parallel barbara ah to the direction of the wave move jihada hirka uu ku soconayo. tusaale maxaan soo qaadan karnaa marka tusaale waxaan soo qaadan karnaa waxa la yiraahdo sound waves ka soo qaadan karnaa. sound waves maxaa la waa hirjaba qaydiyadan soo qaadan karnaa. hore waa kaga hadalnay hirkan goorma la dhigi karaa sound wave waxa la yiraahdaa waa hirarka keeno dareenka maqalka keeno. tusaale hada fiiri in sound waves oo longitudinal yahay oo mechanical waxa ku cadeynayo macnaa markay molecular hawada ee dhaxmarayaan mar maxay la sameeyaan compression ee la sameeyaan marna rare function marna compression marna rare function ee la sameeyaan. teeda kale sound waves inuu mechanical waxa ku cadeynayo macnaa without medium ma gudbi karo. hawswala marka dayaxa la tago labada qofood hadii is agtaagay xataa mismaqlaayaan sababta maxaa waa there is no air in the upper space wax air hawo ma jirto maadaama hawo aysan jirin marka wax jabaq la maqlaa ama gudbaayo ma jirto ilaa sound waveska do not travel through in vacuum allaha waa ku arki doonaa chapterka 3aad waayahay. marka u laabano marka ablaableynta marka u laabano wave-ka maxaa u qaybana laba qaybood oo waaweyn mechanic iyo maxaa u qaybana electromagnetic. marka waqti intiisa badan waxaan soo sharaxnaa hadda qaybta loo yaqaan mechanical wave-ka. marka waxaan ka hadlaynaa qaybta la yiraahdo electromagnetic wave. electromagnetic waves maxaa la dhahaa marka electromagnetic waveska waxaa la yiraahdaa hirarka birlabdanabeedyada af Soomaali ahaan. electromagnetic waves waxaa la waa hirarka birlabdanabeedyada yaa kamida marka electromagnetic waveska waxaa kamida waxa loo yaqaan radio waveska kamida radio waveska oo ah hirarka raadiga ayaa kamida. waxaa kaloo kamida waxa loo yaqaan microwaves ayaa kamida oo ah hirareyaasha kamida. waxaa kaloo kamida infrared ayaa kamida. infraredku waa midka hadda aan isticmaalayno oo hadda justify remote-kan gacanta aan ku hayo dhalada maxaa isku xiray wifi isku xiray hadda hadii aan rabo soo celinaa hadda rabo hore wada ya isku xiraa wifi isku xiraa wifi isku xiraa maxaa la marka infrared alla marka remote control-ka ee dhalada midka isku xiraayo. sidoo kale waxaa kaloo jiro waxa loo yaqaan visible light waa electromagnetic wave. waxaa kaloo jiro waxa loo yaqaano ultraviolet ayagu 7 xabo ultraviolet waa cinab sare. waxaa kaloo jiro waxa loo yaqaan x-rays waa falaaraha x. waxaa kaloo jiro waxa loo yaqaan gamma rays oo ah falaaraha gamma. marka hirarka noocan oo kale ama 7dan ayaa waxa loo yaqaan electromagnetic waves alla waa hirar birlabdanabeeda. hirarka maxaa lagu yaqaanaa marka hirarkan waxaa lagu yaqaanaa they travel without medium. they travel macnaa waxay safraan without medium uma baana macnaa medium dhan uma baana saas waa oo vacuum ayay ku gudbayaan. ama laakiin mechanical waves maxaa shardi ah inay helaan meel ay maraan. okay marka electromagnetic waves marka waa 7daas xabo waan arki doonaa ayadoo slides waa ku arki doonaa. electromagnetic waveska ama hirarka birlabdanabeedyada maxaa la yiraahdaa marka ayagu hirarka birlabdanabeedyada hadii aad maqasho are disturbances waa waxyaabo qasan made up of electric kuwaas oo ka samaysan badadanabeed
and magnetic field iyo badad birlabeed ayay ka samaysan yihiin oo macnaha waxaa loola jeedaa wuxuu ka samaysan yahay waxa loo yaqaano badad danabeed like this markuu yahay this is hadaa u qaato electric field markaa u qaato kana wuxuu noqonaa magnetic field iyo noqonaa marka labadooda maxay isku yihiin perpendicular midba midka kale isku yihiin marka hirka noocaas oo kaleento ayaa waxaa loo yaqaanaa electromagnetic waves hada telefoonada isticmaalno waxyaabaha digitalka wireless networking-ka radioyada TV-yada waxyaabaha dhan maxay ku shaqeeyaan waa electromagnetic waves ku shaqeeyaan oo ah waa hirar birlabdanabeedyo maxaa leedahay marka electromagnetic waves hirarka birlabdanabeedyada are disturbance waa waxyaabo qasan made up of kuwaasoo ka samaysan waxaa loo yaqaan electric and magnetic field oo ah badad danabeed iyo badad birlabeed labada ay ka samaysan kuwaasoo perpendicular ku ah midba midka kale sida sawirkaas aan ku sameynay marka electromagnetic waves ayagu maxaa lagu yaqaan marka dabeecad ahaan ama characterized maxay leeyihiin electromagnetic waveska ama hirarka birlabdanabeedyadu ayagu dabeecadooda waxay ku safraan through empty space maxaa la meel maran vacuum ay ku gudbaan ama meel banaan ay ku gudbaan ayagu looma shardi inay helaan medium ama laakiin mechanical wave maxaa shardi ah hirka inuu helo meel oo maro si energy oo meel uga qaado meel kale uu gudbiyo ama laakiin electromagnetic waveska waxa la yiraahdaa they do not require any material medium energy transferkooda wuxuu dhacaa without medium oo dhacaya okay marka maxaa leeyahay marka electromagnetic waveska ama hirarka birlabdanabeedyada ayaa propagate waxay ku baahan ama waxay ku safraan through empty space maxay waa meel banaan ama vacuum electromagnetic waves can do not require ayaga uma baahna a material medium macnaha dhaxyal uma baahna ama mootiyo uma baahna to transfer of energy si tamar ay u gudbiyaan marka su'aasha la isweydiinaa waxa waay maadaama ay medium ay u baahnayn sidee energy u gudbiyaan marka energy waxay u gudbinayaan vacuum ay ku gudbinayaan ama empty space ay ku gudbinayaan saaswa tusaale maxaa kamid ah marka waa todobadan qoreyna waa marka examples of electromagnetic waves tusaalooyin hirar birlabdanabeeda ayaa waxaa kamid ah visible light waa what we can see our eyes waxyaaba indheena aan ku arki karno ayaa visible light la tusaale hada fiiri markaad qol mugdi aad gasho objects ama waxyaaba qolkaas yaal ma arki kartaa ma arki kartid laakiin hadii aan nal shido shay kasto qolka yaal muxuu noqonaa wax la arki karo ilayskaas waxa la marka visible light la dhahaa qayb kale waxaa jirta invisible light jirta anaga taas kama hadleeno waxaa kale oo soo galaa electromagnetic waveska radio waveska soo galaa oo ah hirarka raadiga marka la dhahayo maxaa kamid noqonaya marka tana u baan ardayga inuu fahmo mar hadii lagu dhaho radio waves hadii lagu dhaho hirarka raadiga only raadiga kaliya ma noqonayo ee waxa soo galaa hirarka raadiga waxa soo galaya waxa loo yaqaan TV program ayaa soo galaya barnaamijyada TV-ga ayaa soo galaya waxa kale oo soo galaya wax loo yaqaano wireless networking ka soo galaya wireless networking waa internetyada anaga isticmaalno waxa soo galaya radarka ayaa soo galaya waxa kale oo soo galaya waxa loo yaqaan radioga ayaa soo galaya all this ayaa waxa la isku dhahaa radio waves la dhahaa waa hirar radio ayaa la hirarka raadiga ayagu marka waxa lagu yaqaanaa waxay leeyihiin wavelength aad u weyn leeyihiin saaswa sidoo kale diffraction way sameeyaan waxa kale oo ku xiga wax loo yaqaan infrared radiation oo ah kaaha casaanka hoose wax kala maan macnaha waa waveska isku xiraayo remote-ka just aniga gacanta aan ku hayo dhaladan hada dhaladan iyo remote-kan wax fiil isku xiraa ma jirta may hada hadii aan taabto already fiiri wuu isbedelayaa soo marka maxaa isku xiraa marka remote-kan gacanta aan ku hayo dhalada maxaa isku xiraayo wave ayaa isku xiraayo wavekaas isku xiraa waxa la infrared radiation la ama infrared wave macnaha hirar casaan hoose ama kaax casaan hoose waa la yiraahdaa sidoo kale waxa jira microwave wax la waa hirar yar microwaveskan inta badan ovens ama jikooyin oo microwave oven la dhahayo ayaa loo adeegsadaa ama laga sameeyaa waxa kale oo jira wax loo yaqaan ultraviolet radiation ultravioletku waa kaax cinab sare waa inta badan wuxuu la socdaa ilayska qorraxda waana markuu maqaarkeena soo gaaro jirkeena wuxuu sameysanayaa vitaminka loo yaqaan vitamin D marka ayagoo faahfaahsan qaybaha danba ku baran doona laakiin hadda example ahaan aan u qaadano marka x-rays wax la jiro oo falaaraha x ah sidoo kale waxa jira gamma rays marka falaaraha gamma inta badan waa radioactive nucleus ayaa laga soo saaraa isbedelada ka dhaco inside the nucleus ka dhacay ayaa laga soo saaraa marka anagu marka hadda maxaan naqaanaa waxa loo yaqaan mechanical wave waan naqaanaa
noocyada loo qaybiyo transverse iyo longitudinal waa naqaanaa. waxaa kaloo naqaanaa wax loo yaqaano electromagnetic waves. marka just waxaan rabnaa ardayga inuu kala saari karo haddii la isku daro tusaalooyin oo ah macnaha mechanical wave iyo tusaalooyin oo electromagnetic wave haddii la isku daro waa inuu kala saari karaa. oo tusaalahaan markaan dib u laabano mechanical wave maxaan kusoo baranay? waxaan kusoo baranay water waveska, sound waveska, spring waveska, string waveska iyo seismic waveska. shantaas waxay ku ay mechanical wave. sababta loo dhahay maxaa si energy u gudbiyaan waa inay meel ay maraan ama mooti waa inay helaan. ama laakiin toddobadan sida visible lightka, radio waveka, infrared radiationka, microwaveska, ultraviolet radiationka ama ultraviolet waveka, x-rayska, gamma rayska, kuwan waxaa la yidhahdaa ayagu electromagnetic wave ayaa la yidhahdaa. waaya guud ahaan waxaan ka hadlaynaa marka astaamaha uu leeyahay waveka. properties of wave ayaan ka hadlaynaa. wave haddii la qoro astaamihiisa maxaa ka mida marka? waveka astaamo badan oo leeyahay laakiin qaar ka midaan qaadanaynaa. oo astaamihiisa maxaa ka mida marka? astaanta koowaad waxaa ka mida wavekan astaan wuxuu leeyahay la yidhaahdo rectilinear propagation. astaan wuxuu leeyahay rectilinear propagation. maxaa laga wadaa marka? rectilinear propagation waxaa la baahid xariiqeedka toosan. baahid xariiqeedka toosan maxaa laga wadaa? waxaa loola jeedaa waveka marka uu soconayo wuxuu ku soconaa wax loo yaqaan straight line uu ku soconaa. marka socodkaas waxaa loo yaqaanaa marka rectilinear propagation ayaa la. waa one of the properties of the wave waa rectilinear propagation oo laga wado baahid xariiqeedka toosan. waa arki doonaa rectilinear propagation means that the wave travel in straight line. macnaa markuu hirka xariiq toosan uu ku soconayo la. labo astaanta labaad waxaa la waa reflection ayaa lahaa. reflection maxaa laga wadaa? hirnoqod ayaa laga wadaa. hirnoqod muxuu noqonaa marka? wuxuu noqonaa tusaale ahaan kan waa barrierkaba soo qaad. barrierka hadduu hir ku dhaco hirka muxuu sameynaa? bouncing back, macnaa dib u soo noqonaa. waa fahantimo? marka astaanta noocan oo kale ayaa waxaa loo yaqaanaa reflection of wave ayaa la. ilaa marka hore fiiri xagga barrierka ayuu ku socdaa wavekan. waa original wave waa. kana muxuu noqonaa? reflected wave oo noqonaa. marka sifada labaad oo lagu yaqaano sifo saddexaad oo waxaa jirto oo leeyahay refraction. refractionku waa hirqalocsan allah. refractionku maxaa la yiraahdaa? hirqalocsamid waa. hirqalocsamid maxaa laga wadaa? tusaale fiir wave ayaa socda laagdiis oo kale. waveka markuu socdo straight kan uu ku socdo wuxuu sameynaa marka change the path. wadada uu ku socdo kala qalocana marka. marka isbedelka noocan oo kale waxaa loo yaqaanaa refraction la dhahaa. waa hirqalocsan ama straight uu ku socdo somehow wadada qaleexana uu qalocana. inuu qalocdan waxaa keenayo mediumku uu ka tagayo iyo medium kirka uu aadayo waxay ku kala duwan yihiin optical density ama cufnaanta ayay ku kala duwan. marka midaas ayaa sababaysa. marka waa mid kamid astaanta saddexaad oo hirka uu leeyahay waa hirqalocsan. astaan kale waxaa jirto oo loo yaqaano number 4 oo waxaa jirta la yiraahdo diffraction. sifo wuxuu leeyahay la yiraahdo diffraction. diffraction maxaa la yiraahdaa marka? diffractionku waa gadaal baahid. haddii aan sawirna fiiri tusaale kan waa barrier wuxuu leeyahay small opening oo leeyahay marka. small opening ayuu leeyahay. marka hirka markuu ku gudbaayo marka daloolkan yar muxuu bedelaa? qaabkiisoo bedelaa. marka qaybana qaybtan waxaa la diffraction ama gadaal baahida la. hadhowta marka waveka markuu size-kiisa yareeyo wuxuu sameynaa dib u baaho sameynaa. sifo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaan interference oo ah isdhexgal. marka shantan qaybood ayaa waxaa lagu yaqaanaa propertieska oo hirka uu leeyahay. marka maxaa waa? rectilinear propagation baahid xariiqeedka toosan, reflection hirnoqod, refraction hirqalocsan, diffraction gadaal baahid, interference isdhexgal. marka insha Allah ayagoo faahfaahsan waxaan ku qaadan doonaa qaybta labaad. halkan waxaan ku dhameynaynaa qaybta koowaad hadduu Ilaahay yiraahdo. is aragti dambe oo xiiso leh insha Allah waa inuu qaybta labaad. ma ogtahay macmiil in adeega anfac plus aad ka iibsan karto xirmooyin qiimo jaban oo mobile internet 4G ah taasoo ay kula socoto daqiiqado ku hadal gudaha iyo dibadda ah iyo weliba fariin qoraaleed. aan ku hago habka ugu fudud aad raaci karto waxay tahay uga shuba EVC Plus-kaaga adigoo garaacaya xidig 724 xidig 6 lambarkaaga aad gelinaysaa xidig lacagta aad dooranaysaa fargees. ama sidoo kale haddii uu kaar kugu jiro kaliya u bedelo garaac xidig
126 afar gees kadibna dooro xirmada aad doonayso waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.